bal imaaraadku isaga iyo yahuuddu waxay soo maleegeen marka laga soo tago maadaama adduunkii ogaaday mowqifka imaaraadku uu ka istaagan yahay marka Gaza iyo shacabka reer Falastiin maanta Ilaahay wuxuu qadaray isla imaaraadki in codsi uu u soo gudbiyay dadka muslimiinta iyo wadamada carabta iyo muxuu yahay isweydiinaysa Soomaa muuqaalkan kuwa la wadaagayay haga degdegin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waadin salaamaya dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan waa walaalkiin Cabdullaahi Macali Xuseen waa rajeynaya anagoo nabad iyo caafimaad qabna in rabbigeen uu mar kale dib inoo kula siiyay isaga ayay mahadaasi oo idile u sugnaatay inta dhiban Allah ka dulqaado intay isugu toosan tahayna Allah u barakeeyo nabigeena calayhi salaatu wasalaamna aan ku wada salino aad baa u mahadsantiin maanta waxaan doonayaa saddex qodob oo aad u muhiim ah waan islaayahay dad badan way ka qarsoon tahay inaad idin iftiimiyo inta ila ogsooneedna waa ku mahadsan yihiin inta ogaan doontana waa ku mahadsantiin soo dhawaada bishaaro haddii aad joogto Yurub iyo guud ahaan wadamada North America fursad qaali ah ayay arintani ku tahay waana rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan haddii aad ka cabanayso calool istaag jir xanuun kor olol caga olol gastric sokor cholesterol kaliya xanuun jilba xanuun rheumatism baabasir gastric aan ka dhamaan sidoo kale hormoneskaaga isbedela iyo caado wareer kugu dhaca ma ka cabanaysaa sidoo kale raganimadaadii oo daciiftay gabaray mase ka cabanaysaa ilaah baa bixiye awlaad la'aan dhammaan cudurrada aan kor ku soo sheego dhan rabbi baa daweeyay laakiin waxa kuu joogto manager Sacdiye Xirsi oo ka caawin doonto ayadoo waliba ku siin doonta daawooyin dabiici ah waliba qiimo dhibis aad u qurux badanna ay la socoto 100% ah waa bishan February chance qurux badan waaye haddii uu miisaankaaga culus yahay sidoo kale waxay ku siin doontaa daawooyin dabiici ah oo aad miisaankaaga isaga dhimi karto ku sii darso oo dadka waayeelada ama dadka waaweyn iyo carruurta yaryar ee nafaqa daradu ay hayso sidoo kale waxay siin doonaan daawooyin nafaqadooda dib ugu soo celiso sidoo kale manager Sacdiye Xirsi waxay ku diyaarisay koorsooyin ganacsi oo aad kaga shaqeysan doonto adigoo gurigaaga joogo waxay ku bari doontaa sida online-ka loogu shaqeysto adigoo gurigaaga iyo carruurtaada dhex joogo oo aanan qof kale gacan u horsan ama aanan mishaar asayga u doonan guud ahaan casharadaana manager Sacdiye Xirsi si free oo lacag la'aan ayay kugu bari doontaa chance baa haysataa telephone numberkeedu halkan ayuu kaaga muuqdaa linkiga sida tooska aad uga xiriiri doontana muuqaalkan aad daawanayso commentigiisa ugu horeeya ayaan kuu soo dhigi doonaa haddii aad joogto Yurub iyo guud ahaan wadamada North America fursad qaali ah ayay arintani ku tahay waana rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan wada shaqeyn wacan aad iyo aad walaalayaal sida hordhaca barnaamijkayga waa ku soo aragteen ninka halka idinkaga muuqda waa wakiilka wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ninkan kale eed arkaysaana waa safiirka cusub ee maamulka Yahuudda u soo magacaabay wadanka Imaaraadka Carabta labadii nin marka waa isla taagan yihiin soo arkaysid labadii nin waa isla taagan yihiin haddaba wakiilka wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabtu waxa uu ka gudoomay warqadihii aqoonsiga safiirka cusub ee maamulka Yahuudda u soo magacaabay dalka Imaaraadka Carabta bal warka aad u dhageyso ee dalka Imaaraadka Carabta loo soo magacaabay Yusuf Shili baa la ninka isla ninkii la soo magacaabay ba arrin fashilay Imaaraadku arinta in la qodqodo oo gudaha loo sii galgalo ma aanu doonin laakiin Yahuud jaanis ugu heshay gool inay ka dhaliso maahan may ku sugay waa maya fursadana hal mar waay haddii albaab kugu soo gargaraacdo oo aad ka furi weydo kugu soo laaban mayso wada ogtiin safiirkan cusub ee maamulka Yahuudda u soo magacaabay Imaaraadka Carabta ayaa isla goobtii warqadaha lagaga gudoomay idaacadihii iyo telefishinada kula hadlay muxuu yiraahdaa isweydiinaysaa Soomaa wuxuu ku yiri adduunkiiba wuxuu u sheegay waxaanu xaqiijinaynaa buu yiri haddii anaga aan nahay maamulka Yahuudda dadaalka qotada dheer ee dawladda Imaaraadku iyo adkaynta xiriirka wanaagsan ee Imaaraadku oo la sameystay maamulka Yahuudda waa mid mahadnaqiisa iyo ereyadiisa halkan aan lagu soo koobi karin waa safiirka cusub ee maamulka Yahuudda u soo magacaabay Imaaraadka Carabta waxa halka idaacadaha kaga sheegay Imaaraadku xiriirkan qotada dheer iyo in ay shurakaa yihiin iyo inay wax isku darsadeen iyo
in lama maqla ma rabin wixii saqarsade wixii ma qarsoona yahuudi imaaraadku inay saa isu dhaxgaleen dunidu ma moogana maanta wadamada islaamka iyo carabtana kama qarsoona laakiin in wixii la fafaaqido la dhaxgal galo in badan oo kamid ah way qarinaysi waxaan u soo laabanayaa imaaraadku dantii uu ka lahaa markii qazi shacabka reer Falastiin iyo dhibaatooyinka yahuudu ay ku hayso imaaraadku markii jaamacada dawlad carabiga isku imaanayaan hal nin bay u soo dirayaan nin iska hurda haduu rabo oo hadii la sacbeeyna iska sabcinayo hadii wax la siixana dhinaciisa ka siixayo laakiin codsa uu adag oo weyn ama ra'yi ummad muslimiin ah ama dawladaha carabta qancin kara kuma ayna lahayn ma aysan soo direenin ayaan dhaweeto intii yareeda Sacuudiga warqad yareeda bilifka ahayd ee sidii dube oo kala habeen 7 saac habeen ma la soo tuuray inta xataa lagama hayo imaaraadki iska badaaye safiirka imaaraadka u fadhiya wadanka Mareykanka baa wuxuu ku taageeray Donald Trump shacabka reer Gaza in laga barakiciyo deegaanadooda waa safiirka ugu imaaraadka ee Mareykanka baa arinta ku taageeray Donald Trump shacabka reer Gaza in deegaanadooda laga barakiciyo oo meelo kale loo raro halkii ayadoo taagantay dunidu yaaban tahay oo leeyahay imaarado intee u socotaan Sacuudiga waxa dheena hurdada ka kacay idinka dhashay soo kacaysan ayadoo leeyahay la isku haysto bay isla xalay asagana wasiir ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabtu ayaa isaguna warqadan soo diray ninkan idin muuqda waa reer Al Nahyan waa wasiir ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda imaaraadka carabta waxa la socotaan in muddo uu ka socdo dagaal wadanka Suudaan oo wada taqaanaan in laba dhinac loo kala jabiyay dhinacna loo bixiyay ciidamo la yiraahdo ad-dacmu sariic oo asaasay oo u dhisay imaaraadka carabtu iyo dhankii kale ee militarigii dawladdu ay lahayd ay ku hirdamayeen oo magaaladii Khartoum iyo tuulooyinkii iyo dalkii Suudaan oo dhan maanta dhulka uu soo salaamay dakum iyo dakum laga dhigay oo maanta shacabkii reer Suudaan ee casiiska ahaa meel walbaaba maanta ay daadsan yihiin oo ayagu ku cunayaan ninka dhibaatada u geystay cid kale ma aha Mareykan ma aha yahuud ma ahan cid kale ma ahna waa imaaraadka ciidamadii dacmu sariic ay lahayd ee imaaraadku howlgelinay oo maal gelinay boqolkiiba 90 waa laga qabsaday deegaanadii ayagu gacantu ay ka hayeen markii laga qabsaday oo arinta ay ogaadeen in barkamale ay taagan tahay oo meel walbaaba ciidamada Suudaan ay lahayd ay kaga dabagalayaan ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadku warqadan wiiftada ah ayay sidii duba camal 7 saac habeen ma soo tuurtay waxa uu leeyahay ninkan ka shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda imaaraadka wuxuu leeyahay waxaan ka codsanayaa kulaha shacabka Suudaan waxaan ka codsanayaa oo shacabka Suudaan ma ayaga dagaal ku jiro shacabka Suudaan ma dagaal bay ku jiraan waxa dagaalamayo waa ciidamo ayaga ay sameysteen oo nidaamkii meesha ka jiray ay ka hor keeneen shacab Suudaan ma dagaalamay dagaal ma ku jiraan Suudaan shacabkeedu kuma jiraan shacabka Suudaan ku waxaan ka codsanaynaa waa in mudnaanta la siiyo ugu yaraan kulaha bisha barakeysan ee Ramadaan si dagaalka loo joojiyo ugu yaraan bisha barakeysan ee Ramadaan dagaalka aan joojino oo dagaalka hala joojiyo labada dhinacna waxaan ugu yeereynaa wada xaajood inay wada hadlaan miiska wada hadalka soo fariistaan haddaba markii laga adkaaday inta dagaalka u dhacay oo dhibaatadaas ay socotay oo ay maal gelinayeen oo ay ciidamada saanadaha u qaybinayeen oo intaas Suudaan dhibaato ay ka socotay shib kama aanu hadlin laakiin maanta markii ciidamadii imaaraadku ay maal gelinayeen laga adkaaday warqadan ay soo tuureen labada dhinac markay miiska wada hadalka isugu soo laabtaan waa inay ballanqaad ay sameeyaan oo markaa wadanka nabadgelyadiisa la ilaaliyo si macnaha ay suurtagal u noqoto gargaarka bini'aadanimada in lala gaaro shacabka reer Suudaan oo markaasi aan keeno gargaarkii bini'aadanimada hubkiiba ku dhax qarsanayo hubkiiba rabayna ku soo dhaxqariyaan marka si aan masaacidad u keeno oo dadka gargaar degdeg ah ugu fidino dagaalka waa inay joojiyaan kulaha arintaasuna waa arrin aad ugu muhiim ah dadka malaayiinta reer Suudaan ee aad iyo aad ugu dhibaatoobay ama ku basbeelay maxay ahayto dagaaladaas inta muddada ka socday dalka Suudaan dawladda imaaraadkuna waxay gacan ka geysanaysaa dadaalana ay ku bixinaysaa sidii dagaalkaas lagu joojin lahaa dhaqaalihii wada hadalka labada dhinacna imaaraadku isagu u bixin lahaa adiga imaaraad guri la u sheeg oo la soo ordayaan bariisa loo baahan yahay dig burba loo baahan yahay dig caana loo baahan yahay dig qoriya loo baahan yahay breega ka gashanayaan marka waxay ayagu ka shaqeynayeen intaas oo muddo ah oo shacabka masaakiinta ee reer Suudaan bilaashka ay ku dhinteen
oo dhibaatada intaa leeg loo geystay oo meeshii laga qaxay oo maanta ay wadamo fara badan ama Afrika ha noqdaan ama wadamo kale ha noqdaane shacabka reer Suudaan ay nooca ugu dhibaataysan yihiin ciddi ka dambeysay waa ayaga ciidamadii ay qalabeeyeen ay hubeeyeen ay dowladdii iyo maamulkii meesha ka jiray ka horgeeyeenna markii la jabiyey intii dagaalku ay wadeen ma aysan hadleen laakiin maanta markii loo awood sheegtay oo ninkii hoggaanka u ahaa la yiri la waayay in muddo ah la lahaa meel uu ka dhacay baan la'nahay oo ayan dhawato Kenya laga sheegay ay hadda soo hadleen waxay leeyihiin baaq baan soo direynaa dagaalka lagu joojiyo shacabka reer Suudaan waa inay ixtiraamaan kulaha ugu yaraan bisha barakeysan ee Ramadaan si dagaalka loo joojiyo shacab reer Suudaan ma dagaal ku jiro waxa dagaalamayo waa ciidamadii dawladda iyo ciidamada dacmi sariic u bixiyay oo isagu u sameystay oo dawladdii ka hor keenay waxa shacabka Suudaan dagaal kuma jiraan markii dagaal ku dhacay shacabkii reer Suudaan meeshii way ka barakaceen qaar dhankaas kale iyo Kambaale iyo xagga u cararay iyo qaar xaggan Chad u cararay iyo qaar u soo cararay wadanka Masar way kala fircameen dadka Suudaan dagaal ma ku jiraan laakiin isaga markii loo awood sheegtay ciidamadiisii maanta nabadgelyo ku baaqayo intii ay wax burburinayeen oo dhibaatada ay wadeenna wuu ka aamusnaa aqliga marka dadka Suudaan lagama gadayay way ogsoon yihiin wayna ka dharagsan yihiin marka qofka imaaraadka ka sugayo inuu xal nabadgelyo qayb uu ka noqdo marka Gaza in lagu soo dabaalo dadka masaakiinta ana la garab istaago ama loo doodo qofkii sugayo waxaad maanta ogaataa iska daa inuu xalkaas gale imaaraadku inuu sii laba jibaarayo xiriirkii qotada dheeraa uu la lahaa maamulka Yuhuudda inuu sii laba jibaarayo marka imaaraadku inuu halka marayo qofkan ogeeno maanta ogow intii ogeedna way ku mahadsanyiin aad baa u mahadsantihiin muuqaalka marabinaan idin la wadaago intaan muuqaalada xiga isugu soo laaban doono nabadgelyo wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh